shirkan ballaadhan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorshaynta qaranka ee Soomaaliland isla markaana ujeedadiisu ahayd sidii loogu gorfayn lahaa saameyntii iyo waliba qiimeynta abaartii baaneed ee ku dhufatay Soomaaliland ay ku yeelatay sida looga hortagi karo abaaraha soo noqnoqda ayaa waxa kulankani ay u qabatay wasaaradda qorshayntu qaran bixiyaasha caalamiga ah ee Soomaaliland taageera kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay midowga Yurub qaramada midoobay banka adduunka iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horreyn waxa shirkaasi daafuray wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka ee Soomaaliland Maxamed Ibrahim Aadan Qabyatire waxaysan waxayna daashaday oo soo noqnoqda oo mar iyo laba baahay years waxayna ugu soo noqnoqonaya abaarahaasi had iyo jeer gaajo iyo macluul iyo wax fara badan bay keenaan ujeedooyinka ugu muhiimsan waxa weeyaan inaynu qaabkii aynu uga hortagi lahayn abaarahan sanad walba waxa la yidhi xunshoy goormuu maamaade saytir waa markuu igu dhaco ayaa daga xogaata waxa weeye waxaynu toosnaa in ogaanaa marka ugu dambaysa ee wixiina gaadhaan hay-adaha caalamiga iyo donorsku waxay naga caawinayaan bal inay assessment sameeyaan saxa inay sameeyaan oo aynu ogaano abaarta horta baaxadeeda abaarihii nagu dhacay waxyaabaha aynu uga hortagi karno iyo dowladdeena cusub inay policy ka yeelato ama aynu policy ka yeelano abaaraha soo noqnoqonaya sidoo kale iyagana waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii ka socday midowga Yurub qaramada midoobay ee banka adduunka waxaanay amaaneen kulankan ballaadhan ee wasaaradda qorshayntu soo qaban qaabisay lagaga hadlayo saameynta abaartii baanad ay ku yeelatay Soomaaliland Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa